dowlad goboleedka Jubaland ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray xarigii wasiirka amniga Jubaland lagu geystay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho isagoo halkaas safar shaqo ku marayay shir degdeg oo maanta isugu yimaadeen guddiga amniga Jubaland ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed waxaana lagu sheegay in Jubaland ay ka walaacsan tahay nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxa maanta oo taariikhda ku beegan tahay 1 bishii 9 2019 shir degdeg isku yimid guddiga amniga dowlad goboleedka Jubaland shirkaan ayaa lagu dooday xaaladda afduubkii shalay wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Janan loo geystay magaalada Muqdisho sida awgeed dowlad goboleedka Jubaland waxay walaac weyn ay ka qabtaa nolosha ammaanka badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan dowlad goboleedka Jubaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in xuriidii si degdeg ah loogu soo celiyo wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland isla markaan la cadeeyo sababtii ka dambeysay in xabsiga la dhigo